marka qaladku ugu weyn oo hadda Arash lagu haysto waxa waaye maxaa la sheeg heestan oo Munir iska lahay oo asaga isku qoray erayay yar oo ku darsaday dartiis haday kalifayso inuu heesta asaga lahaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabtani salaam dhamaantiin meel walba adduunka joogtaan waa saaxiibkiina Maahis channelka fiirsanaysan waa Maahis TV urbanki musigu saxku wadaawadiide haday ka daran tahay asxaabta maanta sida title ku qoran hortare waxa waaye waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin ku saabsan heesta oo soo qaaday King Arash heestaas oo la yiraahdo Abaay iyo Coday okay inta horta marka hore aan u gudbin arrimaha ku saabsan asaga iyo King Arash iyo Munir arrimaha ku saabsan inta u gudbin marka hore ila daawada heesta qayb ugu horeysa What you wanna do, baby? It's on you, baby. One time for this round, let me do it. wakoite ani ikoe titore so ani ikoe wakoite ani ikoe titore so ani ikoe oh irbad marabo dankani salah corona maqabo dankani salah irbad marabo dankani salah okay qaybtan sidan waxa u qaaday King Arash waxa jirto sidoo hadda u soo qaaday hore asagoo ula qaaday Nimco Habi ila daawada aydan okay haddana waxa jirto Munir inuu la soo qaaday heestan Ikran Ozil ayadana sidaan ay u socotaa ila daawada It's your favorite boy, Cash Kid on the track. Ani kalaye, wai timide, ani timid, vittoreso, ani kalaye, irbad marabo dankani salah, falembo marabo dankani salah, irbad maqabo dankani salah, falembo marabo dankani salah. يا هشو هاي عنن سيسو Abaay Coday. okay marka su'aasha isweydiinta mudan waxa waaye heestan yaa iska leh waayo horta su'aasha marka ugu horeysa la rabo in la ogaado waxa waaye heestan qofka iska leh in la ogaado okay maxaa la ii sheeg horta ani waxaa joogay waxaana kamid ahay dadka uu ku jiray Arash markuu imaanay Nairobi oo maxaa la ii sheeg showgiisa dadka joogay kamid ahay oo cameraman camal balbaalis aan ku socdo oo u shaqeynay dadka oo qaban qaabinayna waxa waaye wada asxaab ah wada heeno meeshaan in waa joogay hadda cadeen rabtiina waa kana fiirsada My heart can never tell me lies. I know you love me and the love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, on the kuhole, I will die for you. I swear, oh situation oh, wanna be God. Eti kujifanya. Kwa sisi. kuma asxaabta ku xiran balanbaalis tube kusoo dhawaada caawa yaa idin wadnaa King Arash oo garabkayga midig fadhiyo King soo dhawo Wadaway walaashay. waxa waaye ayantan maalin kasta waxaan la dhahay sabtiga dididka tira aan tagnaa maanta dididka tirna sigeena hadan dhacdhac oo noo siinin kabro saaco jiraan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bulshaweynta Soomaaliyeed meel walbo aad ku dhaqan tihiin dalka dibadiisa gudihiisa daafaha caalamka oo idil showgeyga wuxuu ahaa inuu suurto galo 21 wuxuu gadaal ugu dhacay 27 arintaasna waxa keentay fanaaniin badan oo rapper ah oo magaalada ku nool oo aniga aan joys gareenayo in heeso badan aan meesha isku soo bandhigno ayaa joogo mid iyo labo hadii aan heeso iskala duubnay mid iyo labo ma anfacayso kulligooda inaan wada helo qasab ay noqotay okay sidaan igu sheegay showga dadka promote gareynaya waa ku jira number 1 maxaa la ii sheeg waxaa kaloo ku jiray dadka oo showga markuu dhacay joogay oo xogtan la socday waa kamid ahay marka heestan horta oo King Arash la qaadayo Nima Happy showgaas horta marka hore ku imaaday laakiin showga ka hor aniga asaga barnaamijkaas la fadhinay Shacni Baby oo ku sheegay inuu heestaas qaadi rabo ani maan la socon heestaas inay qof kale leedahay laakiin showga marka imaanay xogta dhan ogaaday marka horta hore heestan xaq ahaan yaa u leh qofka xaq ahaan u leh muhiim ah inta la ogaado Soomaana heestan horta xaq ahaan waxa u leh maxaa la ii sheeg Munir xaq u leh heestan laakiin se maxaa la ii sheeg Arash markuu heesta soo qaaday oo Nima Happy isla socodayeen labadooda showga dhexdiisa ayadoo la joogo maxaa la ii sheeg Munir asagoo xanaaqsan horta show ka soo qayb galay sida awar ku maqlay oo meesha marka oo laga celinayeen waa ka warqabay marka Arash markuu heesta uu qaaday oo asagii aba iyo coday asagii Nima Happy markay qaadeen Munir wuxuu marka oo microphone-ka asaga loo dhiibo inuu dadweynaha ka hor cadeeyo inuu heesta asaga iska leeyahay laakiin se dad badan la taliyeen oo kiciliyeen waxay ku dhaheen saaxiib Munir sidaas ha sameeynin dad badan oo saxiibtiisa kamid ah kala hadleen that's why oo san asaga noo sameeynin marka Arash asagana balan uu qaaday balantaas oo ah inuu heestan oo hadda maadaama oo showgiisa ay taa oo hees cusub camal oo u soo qaado dadku ugu dhigay laakiin se inuu official video oo san u sameyn doonin oo mar dambe heestaas ku soo celi doonin oo heestaas xaqeeda inay iska leedahay Munir uu sheegi doono isbedelka bacdi iyo maxaa la ii sheeg heesta horta Arash ku soo horeeyay Munir wax yariis soo dhigay oo coming soon laakiin Arash waxa soo dhigay heesta full asaga ka horeeyay Munir marka maxaa la ii sheeg Munir ayadoo lyrics soo saaray maxaa la ii sheegna Arashna Nima Happy showgiisa kala qaaday ka bacdi dad badan waxay ka sameeyeen lyrics markaas ay magaalada soo galiyeen marka heesta xaq ahaan horta waxa iska leh Munir markii Nima Happy heesta la qaadaysay maxaa la ii sheeg Munir iyo asaga sidii u qaadeen horta isku mid ah laakiin se waxa la isku haystaa waxay tahay heesta hadda soo baxday oo baayo coday ereyo badan lagu soo daray laxan kala duwan loo keenay laba qofood meesha lagu talagalay saddex qofood laga dhigay oo Cabdi Jareere King Arash iyo gabadha qaadaya saddexdooda marka maxaa la ii sheeg number 1 horta ninka la yiraahdo King Arash balantii uu ka baxay balantaas oo ahayd inuu heestaas oo maxaa la dhahay ii sheeg oo xaqeeda siinayo oo dhahayo Munir iska leh muddo ka bacdi markii uu wixii laga heshiiyay oo sheekada isku dhamaatay King Arash wuxuu soo saaray heesta ay ko saddex qofood ku qaadayaan marka dibka jiro ma ahan heesta muxuu u qaaday because hore uu soo qaaday qofka hees copy oo la qaadi karaa maxaa la erayda rabtid noo ku darsan kartaa because heesa badan oo copy la qaaday marka hadduu hees copy camal u soo qaadi lahaa horta wax big deal ma lahayn laakiin se sidoo hadda u soo qaaday waxay tahay maxaa la ii sheeg sidoo hadda u soo qaaday waxay tahay markii la qoray erayada iyo laxanka iyo waxa si askale King Arash lagu wada qoray erayadana iyo waxan waxa iska lahaayeen Munir asaga heesta iska lahaay laakiin se King Arash qalad ku sameeyay waxa waaye inuu heesta oo xaqeeda asaga siiyo oo dhaho heesta ana iska leh inuu dhaho oo maxaa la is official camal noo soo qaado oo erayada iyo laxankii wax kasta ana iska leh inuu dhaho marka King Arash heesta sida uu soo qaaday oo hadda la taagan sida uu soo qaaday araba inaa wax yar idin ka tuso King Arash
waxaa u duubay Y3 production. جريرة أنا كيف أقول الحاج مراجع أوكي أبغى يعودي بيستي أبغى يعودي يعني أنا هذا وحلا قبل دليل أشياء وحكمي عربد مرة بو دن كان يصلح مركل لو أرجع كلو كحي وحوا هاي فليمبو مفضو دن كان يصلح لكن هذا حالة دقيقة كورونا ما قبو دن كان يصلح وكان عسيدو أراش شيء عسيد هيست سهل دونك وقرته هاي لكن قيب تقول سو عبد الجليل هذا قاعد وحاول قيب وهل واحد لقى بدله اوكي عراش هيست سيده usoo qaaday oo like oo hadda joogo heest usoo bedelay sida hadda ma qadaysan waay okay waxa rabaa markii inaan tuso ereyada laga bedelay iyo sida loo bedelo waxa fiirinaynaa Munir markuu heest qaadayo waxa fiirinaynaa Ani kalaye, wai timide, ani timid, vittoreso, ani kalaye, irbad marabo, dankani salah, falembo marabo, dankani salah, irbad marabo, dankani salah, falembo marabo, dankani salah. Yahoo, hisho, hayunin, siso. اوكي maxaa la ii sheegay heest qaybtu sida oo Munir u qaaday sida waay marka hadda waxa rabaa inaan tuso aba ii coday King Arash iyo Mahabi markay qaadaynadan اوكي marka sida aragteen waxa waaye Arash heest markooni Mahabi la qaadayay koobiga saxda ah markaas uu ahay oo ka koobiyay Munir ereyadiisa oo toos asagoo oo isticmaalay laakiin markii dambe oo heesta oo la soo modern gareeyay oo wax ka soo bedelay King Arash erey markuu ku beddelay ka bacdi xaq heesta muusan siinin Munir inuu leeyahay laakiin wuxuu isku qoray inuu asaga leeyahay marka qaladku ugu weyn oo hadda Arash lagu heesto waxa waaye maxaa la ii sheeg heestan oo Munir iska lahay oo asaga isku qoray erey yar oo ku darsaday dartiis haday kalifayso inuu heesta asaga lahaado taas horta mid kale waa oo fanaaniinta haday sidaas ku yaqaanaan laakiin se hubaal waxa ah in hees kasta qofkii iska leh magaciisa lagu qoro ama lagu xuso ama idinkiisa iyo amarkiisa oo maxaa la ii sheeg oo heesta lagu qaado marka
laakiin se runta jirto ama waxaa waaye anaka haddaan ahay fanska dadka heesaha dhegeysto maxaa la dhahay ii sheeg heestan sida Munir u qaaday iyo sida Nimca Habi King Arash u qaadeen iyo sida Cabdi Jareere iyo maxaa la ii sheegay gabadha kale u qaadeen maxaa la totally different waaye heesta waxay ku macaantahay sida hadda Arash iyo Cabdi Jareere iyo gabadha ay u soo qaadeen laakiin se sida oo maxaa la ii sheeg oo qaladku uu sameeyo anaka dhan Soomaali Maxamed Dana ay fanska heesaha dhegeystada kamid ahay qaladka anigaas ku heesana waxaa waaye King Arash waxaa waaye inuu kusoo xusin qofka heesta iska lahay marka asxaabta runta adarabtiin nala socotiin sidaas waaye marka barnaamijkayga intaas ku gabagaboobay because waxaa rabay inaan waxa ka warqabay inaan idinka soo gudbiyo marka waxaan ilaahay asxaabta dhamaantiin fadlan channel ku cusubtiin subscribe saar like share and comment wax walba diyaaniga iloomin insha Allah taala inta video kala kulmi doono waxaan ilaahay Dictoreso Wakoite, ani ikoe, Dictoreso, ani ikoe. Wakoite, ani ikoe, Dictoreso, ani ikoe. Oh, irbad marabo, dankani salah. Corona makabo, dankani salah. Irbad marabo, dankani salah. Falembo mafadao, dankani salah.